السلام عليكم داوده كورن ilmo kamid ubadkaaga haduu ka lumo kadibna booliska akoor geliso in uu maqan yahay mid kamid ah ubadkaaga kadibna boolisku ay bilaabaan raadinta ilmihii aad u sheegtay inuu maqan yahay kadib la galo howlgal samata bixina oo lagu raadinayo ilmihii raq ama ruux meel jaaniyo cirib dhigay ugu dambeynna ilmihii laga helo meel أن laga filayn xaafadii laga waayayna aan aad ba uga fogeyn qisadan ayaa ka dhacday dalka Mareykanka Miami sanadku markuu ahaa 2017 markii qoys ay waayeen mid kamid ah ilmahooda iyagoo booliska u sheegay inuu maqan yahay mid kamid ah ilmahooda boolisku wuxuu ku dhaqaaqay howlgal lagu raadinayo ilmahaas maqan waxa uu ahaa wiil ah hooyo 10 sano jir ugu dambeyn waxay soo gaareen booliskii xaafadii uu ka maqnaa ilmuhu si xog looga qaado waalidiinta iyo dadka xaafadda ka agdhowna loo weydiiyo xilligii ugu dambeysay wiilka yar ee la leeyahay ugu dambeyn boolisku iyagoo ku jira raadintii wiilka yaraa ay waxa ay bilaabeen in ay istaaraan oo ay kiciyaan baabuurtoodii iyo helicopterta boolisku waxay aragtay muuqaal la yaab leh oo dadkii oo dhan ay ka tacajabeen helicoptertii waxa ay duubtay muuqaal la yaab leh markii wiilka yaraa ee kootonjeerka ahaa ee raadinayay lagu arkay saqafka sare ee gurigooda isagoo hurda kadib booliskii waxay u tageen wiilka yaraa waxayna ka codsadeen inuu soo dego ugu dambeyn markii la weydiiyey sababta halka u fuulay ayaa waxa uu ku jawaabay in lagu jiro xilligii fasaxa waalidkiina ay rabaan inay soo booqdaan qaar ka mid ah qaraabadooda isagoo uusan rabin inuu aado sababtoo ay soo go'aan doonayeen inuu marka qaar uu sameeyo khaladaad aan fiicneyn didn't mean to do it, cause any trouble. And I just do the stupidest thing sometimes. Well, at least they didn't have to look very far. muuqaalkan ka dhiilahayd mase kula tahay ilmaha mararka qaar inay u baahan yihiin in fikradahooda la dhagaysto si aysan ugu dhaqaaqin arrintan oo kale oo ku maasan tahay daawashada muuqaalka daawade